ciyaaraha maamulka koonfur galbeed Abaaw Suufi gudoomiye ku-xigeenka degmada Arab agaasimaha guud ee wasaaradda boortada isgaarsiinta Yuusuf gudoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed iyo martidiisa kale ay qayb ka tahay Nuurto oo u matalaysa maamulka koonfur galbeed iyo dhammaan gudoomiyaha degmooyinka iyo gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh runtii maanta farxad weyn ay inoo tahay in aan qaabilno aan soo dhaweyno dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed runtii anagu wasaaradda koonfur galbeed Soomaaliya ee wasaaradda ciyaaraha waxa ka go'an mar walba in ay soo dhaweyso shakhsi walba oo sheegto in ay u taagan tahay ama ay u heelan tahay kaalmeynta dhalinyarada iyo isboortiska ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo haddana ay ku jirto in ay daladii guud wataan oo ah dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waa harkii ugu weynaa ee la harsan lahaa marka runtii aad ay noo farax gelinaysaa annaguna wasaaradda koonfur galbeed ahaan waxaan dadaalnaa mar walba in aan juhdi gelino in aan dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed aan qayb weyn ama contribution weyn aan ku lahaano tala aan siino ra'yi aan siino ayagana wixii oo resource ay soo helaan ay dib ula soo milaysadaan maamulka koonfur galbeed runtii dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay sida ku xusan taariikhda 12 Agost 2017 hadan saxanahay waa maalinta dhalinyarada adduunka ee Soomaaliyeed ee World Youth Day loo yaqaano ee inagu soo aadan bishii xigta taariikh 12 ee aan rajeynayno inaan xuso doono maalinta dhalinyarada adduunka runtii waxa loogu beegay maalintaas waxay tahay in caalamka la tuso in ay maalintaas ay nagu weyn tahay iyadoo ah maalinta dhalinyarada adduunka ay tahay haddana la dhisay dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed runtii ururka jiri ayuu ahaa xilliga bersamaadkii sida uu gudoomiyaha sheegay waxay ka mid noqdeen institutionadii dawladeed ee burburay hadda ayaa dib u soo kabteen waxaan rajeynaynaa in ayaguna qayb ka noqon doonaan dib u dhiska dalka dib u dhiska dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee siiba ciyaaraha waxaan rajeynaynaa in aan la shaqeyn doono wasaaradda dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya iyo xogeyaha guud ee hadda u matala ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxaa naga go'an in aan idin la shaqeyno waan idin soo dhaweynaynaa daladii ayaa tihiin harkii la harsan lahaa ayaa tihiin waxaad tihiin jambarkii ama meeshii ugu saraysay ee dhalinyarada ay mar walba tiigsan lahayd waxa kale oo tihiin platformkii ama masraxa dhalinyarada mar walba ay fiirsanaysay waxaan idin ka rajeynaynaa